iyadoo dhawaan midowga murashaxiinta ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ay u gudbiyeen 67 xubnood kuwaasi oo ka tirsan Guddiga Doorashooyinka oo ay muran ka keeneen iyagoo ku eedeeyay in ay ku jiraan xubno ka tirsan shaqaalaha rayidka ciidamada dawladda iyo sidoo kale xubno ka mid ah taageerayaasha farmaajo ayaa iminka waxa muuqanaya in guddiga cusub ee lagu dhawaaqayo weli ay ku jiraan mas'uuliyiin ka tirsan shaqaalaha rayidka ee dawladda gaar ahaan hay'adda Qaxootiga Qaranka Soomaaliya. mas'uuliyiintan la farmuuqayo in guddiga ay ka soo dhex muuqanayaan ayaa waxaa ka mid ah Yunis Xasan Alifow oo ah gudoomiye ku-xigeenka hay'adda Qaxootiga Qaranka iyo Qadar Xariir Xuseen oo isna ka tirsan maamulka sarsare ee isla hay'adda Qaxootiga Soomaaliya waxayna ka mid ahaayeen 67 xubnood ee guddiga ka tirsan kuwaasi oo midowga murashaxiinta iyo xafiiska gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ay muran ka keeneen. xog uu helay gurbiya online ayaa waxay sheegaysaa in labada ninba ay horay uga tirsanaayeen shaqaalaha filla Soomaaliya kadibna ay u wareegeen hay'adda Qaxootiga Qaranka oo ay ka qayb ahaayeen shaqaalaha rayidka haddana ay ku jiraan Guddiga Doorashooyinka Dadban lana diiday in la bedelo cabasho kasta oo ka taalo. Yunis Xasan Alifow waxa uu ka tirsanaa 8 xubin oo laga soo magacaabay Hirshabelle 29 bishii 10 sanadii 2020 markii hadda lagu celiyay maamulkaasi si ay isaga iyo qaar kale oo laga keenay cabasho ay u bedelaan waxa lagu bedelay Anas Cabdicasiis Axmed halka Yunis aan la taaban. Yunis Alifow oo ah gudoomiye ku-xigeenka hay'adda Qaxootiga ayaa waxa hay'addan looga shaqaaleysiiyay darajada E 23 bishii 10 sanadii 2019 warqado soo gaaray gurbiya online ayaa waxa ku xusan in guddiga shaqaalaha rayidka ay ku heleen in uu laba mushaar qaadan jiray mid ka mid ahna uu ka qaadan jiray filla Soomaaliya halka midka kale uu ka qaadan jiray hay'adda Qaxootiga Soomaaliya. fadeexada dhacday Guddiga Qaranka ee shaqaalaha rayidka ayaa qoraal u diray 22 bishii 5 sanadii 2020 waxayna Yunis Alifow ka dalbadeen magdhow lacageed oo dhan $6,552 taasi oo ah mushaar uu Yunis ka qaatay xafiiska madaxtooyada xilli uu sidoo kale mushaari ka ahaa hay'adda Qaxootiga Qaranka waxaana la amray in laga joojiyo mushaarka uu ka qaadanayo filla Soomaaliya. dhanka kale dukumiintiyo aanu aragnay ayaa waxa ku xusan in wasiirka arrimaha gudaha federaalka uu magacaabay Abriil 16 sanadda 2020 xubno sare oo ka tirsan guddiga maamulka sare ee hay'adda NCRI waxaa dadkaasi la magacaabay ku jiray Qadar Xariir Xuseen. ninkan isaga oo shaqaalaha rayidka ayaa markii hore lagu daray Guddiga Doorashada Dadban inkastoo xafiiska gudoomiye Cabdi Xaashi iyo midowga murashaxiinta labaduba ay dalbadeen in la bedelo haddana dheg jaraq looma siinin oo waxa la sheegay in uu weli ku jiro Guddiga Doorashooyinka Dadban.